aad u xoog badan wejigiisu argagax uu ka muuqdo welibana cabsi ay ka muuqato. Gabadhii June ahayd ma aysan ka baqin welibana xarig ay la soo baxday ayadoo diyaar u ah maska inay mar kale la dagaasho wayna ku soo booday ayadoo qoorta ka xirtay isagoo dhanne xarigga ay ku duuduubtay oo uu awoodi waayay inuu dhaqdhaqaaq u sameeyo ilaa ugu dambeyntii markii uu daalay dhulka ku dhacay kadibna ku soo laabtay saaskiisii caadiga ahaa ee yaraa waxayna ku soo ridatay jawaan yar oo ay wadatay ayadoo u soo qaadatay dhanka iyo gurigii. Islaantii dhakhtaradda ahayd welibana wax baraysay gabadhan markii aragtay gabadhii soo laabatay aad bay ugu faraxday wayna u hambalyeysay gabadhan ayadoo ku tiri shaqo adag ayaad qabatay maskan aad ii soo qabatay suntiisa ayaan waxaan ka samayn doonaa daawada adduunka ugu wanaagsan sidaasna waxaan ku noqon doonaa dhakhtarka adduunka ugu wanaagsan adigana waad iga dhaxli doontaa cilmigayga labadeennuna dadkoo dhan wayna jeclaan doonaan. June ayaa macalimadii waxay ku tiri macalin maska maxaan ku samaynaynaa oo sidee ayaan ka yeelaynaa maskan ii faahfaahay arrinkiisa. Kadibna islaanta ayaa waxay ku tiri weel ayaad ku ridaysaa maskan welibana 3 maalin iyo 3 habeen ayaad karinaysaa waadna ag fadhinaysaa indhaha kama qaadaysid. Waxa kale oo aad xusuusanataa inta aad karinaysid inaadan isku dayin inaad dhadhamiso weliba wax yar ha ahaado ha isku dayin inaad dhadhamiso iskana ilaali haddii kale waad dhimanaysaa oo isla daqiiqada aad dhadhamisay ayaad ku dhimanaysaa. Islaanta aad bay ugu soo celcelisay iska ilaali ha dhadhaminin haddii kale waad dhimanaysaa. Kadib markii ay dhageysatay sida loo karinayo maska ayay bilowday gabadhii June ahayd inay kariso maska welibana si taxadar leh. Hal mar iskuma aysan dayin inay nasato oo ay seexato 3 maalin ay karinaysay. Waa maalinkii 3aad ugu dambeyntii waxaa qabatay hurdo aad u daran ilaa dherigii uu karkaray kadibna furkii ama daboolkii uu ka dhacay kadibna burburay. Gabadhii waxay maqashay shanqarta daboolka markuu dhacayay. June markay ka soo kacday ayay tiri alla hurdaa ila tagtay wixii waan khalday maxaan sameeyaa dhakhtaradana way niyad jabaysaa alla dhib badaniyaa. Kadibna waxay bilowday inay ururiso jababkii u kala jabay daboolkii dheriga ilaa uu farta ka qalay oo dhiig ayaa ka imaaday kadibna farta ay afka gelisay ayadoo hilmaantay in gacanteedu ay lahayd daawada ama suntii maska sidaasna ay ku gashay khaladkii looga digay. alla maxaan sameeyaa ayay tiri waa inaan macalimadeeda u tagaa si aan u soo weydiiyo waxaan ku xalin karo. Way soo baxday bas intaysan soo gaarin macalimadeeda ayay waxay aragtay wax cajiib ah oo daaha gadaashiisa ayay awood u leedahay inay ka dhex aragto qofka jooga welibana way maqlaysaa. Islaanta ayaa kaligeed isla sheekaysanaysaa waxay leedahay gabadhan waxba ma ogo June waan ka aqli badiyay waan isticmaalay mas ayay ii karisay aqli xumadeeda ma ogo aniga haddii hawshan ii dhamayso in aan dili doono. June markii ay ogaatay islaantan inay ahayd saaxirad macquul maahan qofka aan u shaqayn jiray oo aan ixtiraami jiray ilaan waa shaydaamad weynaatay oo cajuusa noqotay. Islaantan hadalkeeda ayay wadataa oo waxay tiri gabadhan markaan arkay inay awood u leedahay inay masaska qabato welibana xariif ay ku tahay waxaan ka dhigtay arday oo waxaan ku sisirayay macalinkaaga ayaan ahay si ay ugu soo qabato maskii awoodda badnaa haddana way ii keentay ayadase waxay ii malaysaa inaan ahay qof wanaagsan qosol badana sababtan ayada kari u dhahay ayaa waxay tahay kaliya qofka maska soo qabta ayaa awood u leh inuu kariyo maskaas daawadiisa. Gabadhanne waan u digay weliba in badan ayaan uga digay waxaan ku dhahay maskaas daawadiisa hadaad isku taabatid waad dhimanaysaa way ka baqaysaa oo ma taaban karto oo ma dhadhamin karto balse ma ogo haddii ay dhadhamiso inay awood badan yeelanayso welibana derbigay wax ka dhex arki karto waxaan ay ka dhex maqli karto meelo aad u fogfog. beri markay daawada ii soo diyaariso waan dili doonaa. June way naxsan tahay maxaan sameeyaa ayay tiri naagtaan way dili doontaa waa inaan ka hortagaa balse waa inaan iska dhigaa qof aan waxba ogeyn haddana waxaan u sheegi rabay waa inaan kala laabtaa oo aan iska dhigaa qof daacad ah oo aan waxba samaynin. sida ballanta ahayd maalintii xigtay ayaa la gaaray gabadhiina waxay soo qaaday daawadii ay karinaysay oo islaantii waayisheed ay u keentay waxayna ku tiri macalimadeedii dhakhtaraddeedii qaaliyad ahayd waa tana daawadii aad sugaysay welibana waan kuu soo diyaariyay hadalkaagiina waan maqlay oo waan dul joogay hal marna indhaha iskuma aanan qabanin mana aanan dhamanin oo carabkayga ma aanan saarin. kadib islaantii waayisheed waxay ku tiri shaqo fiican ayaad qabatay welibana waad iga farxisay ardaydeedii aad ayaan kaaga helay waxaan rabaa inaan kugu abaalmariyo mushaaridan oo aan si khaas ah adiga kugu sameeyay. June way isku dayday inay diido mushaarida sababtoo ay tahay waxay ka baqaysaa inay ku dhimato oo sun ay ugu soo dartay naagtani. Markaas ayay ku tiri
macalimadeedii kaligii ma cuni karo, ceeb ay igu tahay ardayga kaligiisina wax cunee, iska daa oo adiga cun ama aan isla wada cunno. Kadib islaanta ayaa tiri, waa yahay, amarkaaga ayaa jira, hadda ayaan jikada ku noqonayaa, welibana weel kale oo mushaari ay ku jirto ayaan keenayaa, kadibna waan isla wada cunaynaa, waxba ha ka walwalin. Islaantii way baxday, weelkiina way ceshatay, jikada ayayna aaday.